عارك الصومالي وفرنا أنا وصي أنا وصاص وكرتو هذا عارك دولة دجاجة كفرنا وصوماليها ولوس بيقولك شوالي إثيوبيا وكا صومال ummadda Soomaaliyeed inay ogaadaan gobolkaasi inuu yahay gobol dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin oo xaq u leeyihiin safarkayga ugu horeysay ayaa waxaan arkay in ay ku jirto gobolkaasi fursad dhaqaale oo runtii baaxad weyn in ay maxaan ku dhahaa lagu dhiiran karo in laga sameeyo ganacsi waxaan indhimeeyey waxyaabaha hirgalay oo ay xukuumaddu ay qabatay وأنتي معلومات بدن عن كديارية وحنا كي برايفت سيكتور كو إنه بناية هاي. دد ألف فرق بدن بعد كنا Soomaaliya oo nooc walba leh marka dadkaas isaga dawladda Soomaalida iyo gobolka Soomaalida ay degan tahay jamhuuriyadda federaalka Soomaalida leeyahay iyo gobolka NFD kulli dadku waa dad Soomaali ah waa dad nin walba meeshuu rabo aadi karaa anigoo ku dhashay muxuu ahaa deegaanka Soomaalida Ethiopia yaa waxaan tagi karaa Soomaalida oo muxuu ahaa ka mid noqon karaa oo waxaan tagi karaa NFD idinkuna kulligeed isku mid baa inoo wadanahay marka dadku waxaaba weeye Soomaalidu ilaahay baa isku diray waa quattro gatti oo wada walaala ah oo aan ku helay labada sano oo sidaa ku dhisay labada sano ku helay baan ugu mahadnaqaynaa ilaahay baana ka weyn oo ugu sii mahadnaqaynaa ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa marka dambena dadkii gartay inay sidaa ay ugu halgamaan oo nabadda ay uga baydheen geesi waxyaqaan waxa ah ninka meeshii gacantiisu ay mari weydo ku daya wax kale oo nabadda colaad ku mari weydo inaad marisid nabadda aad ku marisid marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadka sidaa yeelay waxaan u gudbinayaa fariin waxaan fariin u gudbinayaa walaalahayga wali dabadda ku maqan wali ka maqan wali xabadda sita in ay ku soo biiraan oo nagu soo biiraan walaalahayga nabadda qaaday የኢህአዴግ መንግስት የወደቀውን መንግስት በአዲስ አመራር ለመተካት ከትግል ወደ ድል የተሸጋገረበትን የግንቦት ሃያን በዓል ለማክበር አስባችሁ ከልብ በመነሳት ከኢትዮጵያውያን አጋር ወገኖቻችሁ ጋር በመቆም ይህን ድንቅና በተግባር እውነት የሆነ መታሰቢያ ለማድረግ በመቻላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ። دولتي هذه أنتي كحلي إن بدقليو بسرعة وهي Soomaaliya Ethiopia ahaa waddankiina nabadgelyo weeyaan ilaahay nabadyo caana lagu gaarsiiyo bishan እኛ ሶማሌዎችና ሌሎችን ህዝቦች በባህልና በቋንቋ የተለያየን ብንሆንም Soomaalida Ethiopia dan af Soomaali iyo Ethiopian aan kala hadalno dad wada mid isku mid aan nahay